waxaana waxaa keenay kaba soo qaato tusaale dhugsoon ugu duuraya adceedda iyo suu iskugu duuraya isaga iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قالية maanta wadan jar oo la yiraahdo Djibouti ama wadankeena Djibouti waxaad ku dhacay wax la yiraahdo daad baa soo galay ama wadana qaarkood oo wajaarkeena walaalaheena ikana daad baa dhibaateeyay biyihii dadkii khayr u noqon lahaa baad noqday waxa dadkii dhibaateynay taana waxyaabo badan baa keenay dad qaarkood waxay leeyihiin waa cari ilaahay ka timid oo markaas sabab lagu macneeyaa dadna waxay leeyihiin waxaan wax isbedel cimilada ka yimid oo anaka bilaadanka waxay dadna waxay leeyihiin isbedel cimilada ka yimid oo bilaadanka beera taraad kuma waxay ku dhanba laga sheekanay marka anu waxa video isku dayay doonaa walaalkay qaaliga ama walaashay qaaliga intaan kula wadaago wuxuu ka dhigay maanta waa laga sheekeeyaa isbedelka kuleylka ama jawgigu muu jira mise wax jira ma wax bilaadan ku raad ku leeyahay mise ma waxa ogaatiin horta waqtigii adduunkan ama planeetkan aan ku noolnahay uu abuurmay uu xismay ilaa ma imika waxyaabo badan ka dhacay waxyaabahana waxa kamid aha mar dhulku baraf uu noqday aad marna dhulku kuleyl buu noqday taana waxyaabo badan baa keenaya waxaana waxa keenay kaba soo qaato tusaale dhugsoon ugu duuraya adceedda iyo suu iskugu duuraya isaga iyo dariba ayaa wax ka dhaceen amba waxa keenayba waxaan planeetkan aan ku noolnahay ayuu dhigaha cirka uga yimid hadii aan dhigaha u bixiyo marka taa ayaa keenay marka jawgi intuu kululaado ama qawaado laakiin waqtiyaashan dhow aba 1950kii waxa la yiri cimilada isbedelaysa waxaad ka dhibaateyn karaya bilaadanka 1950kiina waxa la yiri uu si xoogsanaanaya dhibaatadu bilaadanku ku leeyahay isbedelka cimilada taana waa wax si xoogsanaya maalinta ka sii diyaarsan rag ku takhasusay cimilada jawgi isbedelada 2018kii waxay soo saareen waxay soo saareen rapport amba ay ku qorayaan ay leeyihiin hadii wax laga bedeli waayo adduunka san imika u noolnahay waxyaabo badan baa dhici doona waxa yiraahdeen ka soo qaad maalin markuu bilaamay ama markii la waxeeyay waxaan la yiraahdaa leeqda industrialisation amba wax soo saaritaanku markuu batay bilaadanka uu isticmaalay aaladaha waaweyn amba waxa sii deynaya gaasas badan laga bilaabo maalinta ilaa imika waxa ku kordhay 1 degree ku kordhay isbedelka cimilada kadibna waxay isleeyihiin hadii taa laga bedeli waayo waxa kordhi doona ibir dhibic 2 ayaa kordhi doona sanadkii kasta amba waxa kordhi doona ilaa ma waxay ku qiyaaseen 2100 ha waxa dhici doona 5 ayuu degree-gu amba cimiladu kordhi doonta 5 degree waa wax halis weeyaan tahay ku dhan anako marka la wada ogsoon yahay ba hadana bilaadanki ama anaka shakhsiyan waxba aan ka qabanayn dad badan oo isku yimid caalamkana way jirtaa laakiin wadan kasta maanta wuxuu horumarinayaa wax soo saaritaanka ayuu horumarinayaa ka horumarinayaa planeetkan amba waxaan naga wada dhaxeeya nicmadii ilaahayna siiya marka mid kasta oo naftiisu eeganaya shakhsi kasta maanta marka shucuubtiiba maanta ilaahay uu ka qaaday fikirkan ee ha ilaashano aqalkiina naga wada dhaxeeya marka maalinta ka sii dambaysa wax si adkaanayo maalinta ka sii dambaysa soo xumaanaya dadkiina ha noqdo mas'uuliyiintii ha noqdo bulshadiina ha noqoto amba cilmiga u lahayn sida u fahmi lahaayeen waxan oo wax soo gaarsiiyay waayay amba garanayo waxbay kama kale amba dad ku dadaalaya saddexda dad ku kala baxay marka hadii aan soo yarkoobo sidoo naqshafmo kalimaadkii ku dhacaa waxa la ogsoontiin horta waxaan deganahay anagu waxa planeeta adceedda noo dhow adceed baa jirta adceedduna wax sii daaya wuxuu sii daaya baalkii dimiyar buu sii daaya ama wax la arkayo oo iftiin buu sii daaya iftiinkaana qayb la arkay qayb la arkin baa jirta marka qaybta la arkay iyo qaybta la arkay wax soo dhex maraan baalkii kuushkan planeetka ay soo dhex maraan waxay imidaan dhulkay taabtaan qaarna markay dhulka taabtaan dhulku u sii celiyaa ama qaybta inta ugu badan u celiyaa markuu dhulku celiyana waxaad ogsanaatiin
inta ugu badan inbaa baxa oo dhulka ka baxa, inna waxaa qabta waxa la yidhahdo effet serre. effet serre-ka waxa weeyaan waxa ku dhex jira effet serre-ka haddii nimcana wuxuu daro wuxuu waxaynayaa iftiinkuu dhulku sii dayn lahaa oo cirkaa shishe u diri lahaa ayuu dib ugu soconaya dhulka. marka kaba soo qaad maanta miyaaradda haddii aa haysatid ood miyaaradda waa dareemtay maxaa ku sii daysay iftiin ugu soconaya. marka waa saayoo kale weeyaanoo marka waxaa arkaysaa jawigii dhinacu kuleylka amba waxyaaba badan ay naga bixi lahayn buu waxna soconaya waxaa effet serre-ka loo yidhahdo. marka effet serre-kana waxaa ku jira waxa la yidhahdo soode oo sii daaya markaa ha noqoto gaariyaashu ama ha noqoto shirkadaha waaweyn wax waxaynaya. marka waxyaabaha ku dhan bay sii daayaan. marka waxaad dareemaysiin hadduu soodeyga bato effet serre-kuna xoogiisa sii weynaanayo marka cadceed ama iftiinkii badnaaye dhulku iska celin lahaa ayaa markaa kusoo noqonaya dhulkiiyo dhibaato keenaya. markaa dhulkuna wuxuu noqon doonaa kuleyl. waxaa haysatiin miyaarad baa haysatiin kaba soo qaada tusaale yar bila macni miyaarad yar baa haysatiin dhulku sii daynaya miyaaradda qaybna way ka baxaysaa qaybna miyaaradda way ku soconaysaa dhulka. laakiin maalinta kasii dambayska waxaa kaba soo qaaday miyaaradda way sii weynaanaysaa. marka waxaa arkaysiin cadceeddii dhulkii iftiinkii ka bixi lahaa ayaa in badan kusii noqonaya maalinta kasii dambaysa. taana oo tusaale yar. marka maxaan waxaan karaynaa maanta bulsho kastaba iyo waqti kastoo la joogaba qof kastaba mas-uuliyaddiisa waa intuu yiraahdo adduunkan haddii anigu wax ka bedeli waayo inta yara ugu yar iska daa wax kale maanta aan waxaan karayo haddii aan waxaan waayo siduu jawigan looga wada qaybtimi lahaa daraygo baktiisid iska badaa wax kale markaad baxaysid. haddii fikradan ay kugu dhalatay ee tahay qof bilaadan ka mas-uula joogin marka ilaahayna waxa uu hagaajinayaa insha Allah. bilaadanku shucuurta markay isku ururtana ay ka baxdo aniga ay yiraahdaan war wax wala midatan he aqalka naga dhaxayay ilaashano markaana insha Allah wax wala qabsan. ilaahay naga madhigo kuwii jahli amba markii kasta wax dheersada laakiin ilaahay naga dhigo kuwii markii kasta wax isla qabsada oo noqdo qof midata insha Allah. marka waxay ahayd tan hordhac yar bay ahayd anigu macnaynayo isbedelka cilmiga. videoga soo socota waxaan ka sheekaysan doonaa daadka ugu qiimida daadku maxay ka dhigan yihiin iyo daadku dhibaatayaashu keeno insha Allah. daawasho waxaan ba ku rajinaa videoga kala soo socota. waxaan ku leeyahay walaalkay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.